Salaamaha saaxiibayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeena halkaas oo aan idinkugu soo gudbinayno faahfaahin cusub oo ka soo baxaysa dhexdhexaadinta Sacuudiga ee dhinacyada siyaasadda Soomaalida. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kula wadaagno xogo kooban oo maalinle ah. Mahadsanid. Xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa si xawli ah kor ugu kacay toddobaadkan, waxaana la filayaa inuu isbeddelka xiriir ee dhacay uu beddelo jihada siyaasadeed ee gobolka, geeska iyo gacanka Cadan. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Axmed Cali, ayaa jooga Riyaadh, caasimadda Sacuudi Carabiya, waxaana ku biiraya taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya, Mahad Salaad, oo asagana tegaya saacadaha soo socda. Labada mas'uul ayaa horudhac u noqonaya wafdi sare oo madaxweynaha Soomaaliya hogaaminayo, kuwaas oo booqasho rasmi ah ku tagaya boqortooyada Sacuudiga. Ujeedka safarka ayaa ah in kor loo qaado xiriirka Muqdisho iyo Riyaadh, laga wada hadlo fulinta heshiisyadii hore iyo inay Soomaaliya xaqiijiso ka go'aanaanteeda daleed ee taageerada qorshaha isbeddel ee hogaaminta boqortooyada Sacuudiga ee khusaysa gobolka, geeska, badda cas iyo gacanka Cadan. Sida aan xaqiijinay, waxaa meel sare ajendaha kaga jira in boqortooyadu ay markii ugu horreysay gacan siyaasadeed siinayso Soomaaliya. Waxaa miiska saaran in Sacuudigu uu ku dhawaaqayo isku keenidda dhinacyada siyaasadda Soomaalida, taageero rasmi ah siinaya dowladda federaalka, sidoo kalena fasaxayo mashaariic horumarineed uuna Soomaaliya siinayo ilaalin iyo galaangal diblomaasiyadeed. Soomaaliya ayaa noqotay dalkii koowaad oo taageero u muujiyay hogaaminta boqortooyada ee ku wajahan xasilinta dalka Yemen. Sacuudiga ayaa xisaab siyaasadeedka dalka Yemen toddobaadkan gudihiisa dhanka kale u rogay, isaga oo dalkaas ka saaray ciidankii Imaaraadka, soo afjarayna kala goyntii dalkaas, sidoo kalena gogol nabadeed u dhigay dhinacyadii ku dagaalamayay Yemen. Soomaaliya waxay wajahaysaa khataro juqraafi siyaasadeed oo la mid ah kuwa Yemen. Waxay gacan ka helaysaa dalka Sacuudiga oo u istaagay badbaadinta Yemen. Haddaba, madaxda Soomaalida ma u istaagi doonaan inay ka mira dhaliyaan fursaddan marla aragga ah ee dalka soo martay?